wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo boqolaal askari kula hadlayay duleedka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in ay faragelinta ay ka daayaan xaaladda gobolka Gado. Sidoo kale Masar Janan ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya ee degmooyinka tirsan gobolka Gado ay ku daabuleysay ciidamo ay sheegeen in ay yihiin kuwo la dagaalamaya Kenya laakiin ujeedadoodu ay tahay sidii ay u burburin lahaayeen xaaladda iyo shacabka gobolka Gado. wasiir Janan oo hadalkiisa wata ayaa sidoo kale sheegay in wixii dhibaato ah ee ka dhasha ciidamadaasi ay geesaha mas'uuliyadooda oo qaaday doono madaxweyne Farmaajo uu sheegay in meeshii uu ka soo jeeday uu ku soo jeedinayo ama ku soo daabulayo ciidamada u qabdan lahaa halkaasi. ugu dambeyn Mr. Janan ayaa waxa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya inuu saacilo oo qaato tilaabooyinka uga imaanaya bulshada rayidka si uu dalka u burburin. Farmaajo ilmaadeer baan nahay, waxaan kula talin lahaa inuu saacilo dalka dhaafo qaatana tilaabada musharaxiinta iyo in dalka laga qabto kaalin weyn ayaan ka qaadanayaa sidii Farmaajo dalka looga saari lahaa ayuu yiri wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan. dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in gacanta lagu soo dhigo Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo sanadii la soo dhaafay 19 dowladda Soomaaliya ay ku qabatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho kaasoo in muddo xirnaa kadibna ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. baxsidka kadib Cabdirashiid Janan ayaa dowladda Soomaaliya waxay amartay in gabi ahaanba la soo qabto Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ku sugan deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya.